السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذ السلام دمانتين وحينا وذا ورد دقدقة ninkii la raadinahayay ee la oran jiray Brian Landry oo dili jiray Gabby Petito oo FBI-da ay raadinayeen oo ninkaas oo cararay oo dhuuntay oo la waayay meel uu ka baxay la waayay markuu gabadhaas dilay laba beri ka bacdi ayuu gurigooda yimid oo guriga hooyadiis iyo aabihiis gabadhuna ay la joogtay intuu yimid ayuu ka baxay oo ka tagay asagoon cidna wax u sheegin laakiin cid og ma leh inuu u sheegay hooyadiis iyo aabihiis FBI-da waxay sheegtay ninkaas inay heleen maxaa la yiraahdaa ay waxay cadeeyeen inay heleen jirkiisii maxaa la yiraahdaa hara kamida jirkiisii inuu dhintay ayay cadeeyeen oo waxaa laga helay meel la yiraahdo Carleton natural reserve waa meel baaga oo waxa weeyaan oo meel baagoo dadku ay aadaan oo dalxiis iyo wuxuu aadaan cidiisa ayaa waxay tiri September 13 ayuu wuxuu aaday hike waxa la yiraahdo socod dheer ayuu wuxuu aaday meeshan la yiraahdo Carleton Natural Park meeshaas ayuu aaday ayay yiraahdeen laakiin FBI-da waxay raadinayeen ninkan wuxuu maqnaa oo raadinayeen 5 weeks shan week camal waxa weeyaan waa bil iyo hal week ayay raadinayeen nimankan FBI-da iyo booliska kulli la raadinayeen sababtoo intuu gabar dilay ayuu cararay oo gabadhiina waa tii laga helay Wyoming buu ku dilay meeshaas la yiraahdo Gabby Petito ninkan cararkii uu ku jiray meeshan baagaas iyo meelahaas midhaa joogay sababtuu isku dilay lama yaqaano wuu isdilay marka maxaa la yiraahdaa meeshuu isku dilay way xirneyd sababtoo ah meesha waxaa waa meel aad iyo aad u weyn baagaas waa meel aad iyo aad u baaxad weyn waa dhul weyn oo haddana inta biyo ka buuxeen roobabaa midha inta ku daa biyo galeen waxayna leedahay meel iyo xaasyada iyo masaska iyo meel aan la geli karinin weeyaan biyuhuna ay dadka xabadka u marayaan oo ay xabadka u istaagayaan haddana waaba meel bahalo ka buuxo oo meel booliska iyo dadku ay geli karaan ma ah meel markii horeba asaga la raadinayo kowdii horeba waxa weeyaan helikobtaro iyo wax lagu raadinayo socodka aan lagu raadin karin biyihii ayaa markay xoogaa gursadeen oo meeshii la furay oo la yiri meesha markaan waa la aadaya I think khamiistii ayay ahayd waxaa dhacday in raadintii ay kasoo qayb galaan waalidkiis hooyadiis iyo aabihiis aabihiis waxaa la yiraahdaa Chris Landry iyo hooyadiis ayaa ka qayb galeen oo ka qayb qaateen raadintii wiilkoodii la raadinayay marka sidii loo raadinayay oo dadku de markay wax raadinayaan baag waa meel weyn xoogaa meesha lagu kala qofba qaybo meel bay wax ka raadinaysaa marka aabihiis ayaa wuxuu sameeyay wiilka aabihiis meel gooniyo aaday oo ku leexday oo yiri uu ka raadinayo wiilkiisa meydkiisii ama nolol wixii lagu heli lahaa sidoo u raadinayay oo yacni uu meelahaas u wareegayay ayuu wuxuu ku yimid wiilkiisii meydkiisii lafihiisii wiilka lafihiisii iyo wuxuu ku yimid iyo dhar wiilkiisa lahaa iyo bag oo wiilkiisu watay boorso wiilkiisu watay wixii ayuu ku yimid marka wixii booliska ayuu ugu yeeray oo la wadaagay meelahana socsoconayaan waxaan ku arko yiri booliska waxay sameeyeen marka wixii la qaaday oo alaabtii iyo wixii ay qaadeen bagna waxaa ku jiray buug ayaa ku jira bagga dhexdiisa buuggaasoo qoyan oo macnaha wuu qoyanaa buugga laga dhexelay boorsada waxayna yiraahdeen waa waxa ku qoran waa laga
yacni waa la baarahayaa waxay qabaan qalab lagu fiiriyo markuu qalalo oo recovery ku sameynayo oo soo helaya wixii meesha ku qornaa marka waa la ogaanayaa bay yiraahdeen wixii ku qoran buuggaasna marka waxay sameeyeen nimankan FBI-da waxay u direen ilkaha ayaa laga baari sababta lafaha waxaa laga baari karaa ilkihiisii ayaa waxaa loo diray baaritaankaas oo waxay yiraahdaan meel ilkaha lagu dhaqa dentistiha ay aadi jireen cidaas wiilkiisa ay geyn jireen markuu yaraa iyo markuu weynaaba ayaa lagu soo baarayaa waxaa lala ogaanayaa diiwaanka ku jira ilkihiisa waa la isku baarayaa ilkahan iyo ilkahan inay isleeyihiin marka baaritaanka ay soo sameeyaan FBI-du waxaa soo cadaatay wiilku inuu yahay wiilkoodii uu yahay Brian Laundrie marka wuxuu isku dilay iyo sababtu isku dilay lama yaqaano haddana sidaas kugama harayaan ilkaha laakiin haddana waxaa baaritaan lagu sii sameynayaa lafihiisii ayaa baaritaan lagu sameynayaa iyo waxaa laga qaadayaa dheecaan waxyaalo badan baa lagu sameynaya marka waxaa la rabaa in la ogaado macnaha inuu asaga inay si fiican u sii xaqiiqsadaan inuu asaga yahay iyo in kaleeto nobody knows qof og ma lahan sababta uu isku dilay ama uu u dhintay wiilkan because ninkan laguma xukumin dilkii gabadhii uu dilay macnaha lama yaqaano gabadhan sababtuu u dilay waxa ku kalifay inuu dilo marka waxyaalo badan ayaan la garanaynin sababtay u dhaceen waxaan kaloo la garanaynin sababta ku kaliftay waalidkiisa inay ka qayb galaan raadintan hadda wiilkooda la raadinahayo macnaha waxaana laga helay 45 daqiiqo meel u jirta baakanka eelida laga galayo ayaa meesha lafiisa laga helay waxay u jirtay 45 daqiiqo waxaa kaloo la ogaan sida odaga uga leexday dadkii raadinahayay raadinahayay wiilkaas nolol iyo geeri ku raadinayay siduu inta uga leexday asagu alaabtan kusoo helana lama yaqaano waxa weeyaan waa mid calaamad su-aal ay saaran tahay oo ay rabaan boolisku inay ogaadaan sida ay la yaaban yihiin calaamad dadka dhanna waa la yaaban yihiin marka waa la rabaa in la ogaado ayadana ciduna ma hadlayso waxna ma sheegayso waxa sababta macnaha wiilkooda inuu wax la wadaagay iyo in kaleetana ma sheegan ilaa haddana ma aysan hadlin mana u malaynayno inay tacsi u dhigayaan sababta meeshii statekoodiina maba joogaan state kale joogaan oo meesha laga helay wiilkay joogaan markuu waxa weeyaan dadka dhan way yaaban yihiin xitaa booliska yaaban laakiin sidaas loogama harayo wax alaali iyo macnaha waxa ku kalifayna lama yaqaano sababta xitaa u imaan waayo wiilka oo u dhihi waayo de gabadha anaa dilay saasaan ku dilayna lama yaqaano marka wixii kaloo kasoo cusboonaaday insha allah waa idinla soo wadaagi doonaa waa la helay wiilka meydkiisii waa la xaqiijinayaa inuu asaga yahay iyo in kaleeto wax kastaa iska dhici kara inuusan ahayn baa iska dhici karta macnaha gaaladan sidaan kuma haraayaan waa inay ogaadaan sababtuu isku dilay marka wixii kasoo cusboonaysta waa idinla socodsiin doonaa just hadda intaasa hadda soo cusboonaatay thank you very much waa cadar miri oo idinle asalaamu calaykum waraxmatullah ha iloobin inaad subscribe ka saartid share like thank you bye